kani waa gumaadaagii ugu weynaa adduunka wayna jecel yihiin burcadda iyo dilaayaduba waana hubka kaliya ay ugu isticmaalka badan yihiin waana kan astaantiisu ka muuqato wadamada qaar calamadooda sanadkii 2004 waxaa la xaqiijiyay in qoryaha adduunka yaala ay yihiin 500 milyan oo qori halka qoriga AK47 uu ka ahaa kaligiis 100 milyan oo qori ku soo dhawaada daawadayaal muuqaal kooban oo aynu ku eegayno farsameeyihii ama hindisihii qoriga AK47 Mikhail Kalashnikov fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro channelka subscribe saar muuqaalkana haddii aad ka heshay like saar mahadsanid inkastoo oo lagu xusay ikhtiraacida qorigan ayuu haddana ka helay lacag aad u yar markii uu farsameeyay waxa uu ku dhashay galbeedka Siberia taariikhdu markay ahayd ama ay ku beegnay 10 November 1919 waxa uuna ka dhashay qoys ka koobnaa 18 caruura sanadkii 1938 ayuu ka mid noqday ciidamada Soviyetka ee ciidamada casa ama Red Army waxaana xirfadda uu lahaa ay qayb weyn ka qaadatay sidii loo horumarin lahaa hubka ay isticmaalaan ciidamada Sovietka hase yeeshee wuxuuba ikhtiraacay qorigan lagu magacaabo AK47 kadib markii uu weydiiyay askari ay saaxiibo ahaayeen sababta Sovietku u samaysan waayay qoryihii ay isticmaali jireen wadanka Jarmalka samaynta AK47 waxay dhamaatay sanadkii 1947 laba sano kadibna qorigan waxa uu noqday mid ay la qabsadeen ciidamada gaashaanbuurta Warsaw oo ahaa ciidamadii ugu horeeyay oo isticmaalay qorigan AK47 75 milyan oo qorigan ah ayaa la soo saaray intii u dhaxaysay 1994 waxaa si rasmi ah u adeegsada qorigan ciidamada 106 dawladood oo adduunka ku kala yaal halka 30 dal oo kamid ah wadamadaasi ay iyagu samaystaan qorigaas waana qoriga ugu badan oo ay adeegsadaan jamhadaha iyo burcadda dhimashada uu sababo waxay laba jibaar ka badan tahay dhimashada ay sababaan madaafiicda iyo gantaalada askarigii hindisay qorigan waxaa la siiyay bilado aad u badan oo ay kamid ahaayeen Order of Lenin iyo the Hero Socialism Labor balse nasiib darro waxa uu ku beelay maqalkiisii tijaabooyinkii badnaa ee ay ku sameyn jireen qorigan waxa uu diiday ikhtiraacii Kalashnikov inuu aqbalo mas'uuliyadda dhimashada dad badan oo uu galaaftay qorigan waxa uuna ku eedeeyay siyaasadda dalal kale inay sabab u tahay dhimashada uu sababo qorigan waxa uu jiray sanadkii 2008 aad ayay ii dhibtaa marka aan arko dad dambiilayaal oo ridiyo qoriga aan ikhtiraacay waxaana lagu tiriyaa saddexdii hindise ee ugu saameynta badnaa adduunka qarnigii 20aad waxa uu dhintay Kalashnikov sanadkii 2013 waxaana aas qaran loogu sameeyay dalweynaha Ruushka ma ahan qof caan oo dadka dhan yaqaaniin laakiin waxa hubaala in dadka ku nool dunidan ay yaqaanaan qoriga uu ikhtiraacay oo 60kii sano ee la soo dhaafay ahaa qoriga ugu gumaadka badan ee salfaday nafo badan macnaha uu taagan yahay magaca qorigan oo ah AK47 ayaa kala ah xarafka A oo u taagan Ultimate iyo xarafka K oo u taagan Kalashnikov oo ah ninka hindisay magaciisa iyo 47 oo u taagan sanadkii la hindisay qorigan waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo channelka subscribe saar muuqaalkan haddii aad ka heshay like saar mahadsanid